بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلنتي wanaagsan oo aan meel kasta adduunka joogtaan walaalaha sharafta leh ku soo dhawaada barnaamijkan gaarka ah oo ga hadli doono arrimaha caafimaadka ee dalka Turkiga. Waa barnaamij ay dad badan wada sugayeen laba week ka hor labadii bisha February ayaan waxaan ballan qaadnay inaan soo gudbin doono barnaamij arrimahaasi ku saabsan. runtiina barnaamijkaasi waa barnaamij annaga si gaar ah aanu uga hadli doono khibradii aanu kala kulnay dalka Turkiga. Xamda ka waran aad iyo aad baad mahadsan tahay sida waxaa jirku sheegay labadu baan sugayseen qaarkiin nala soo xiriireen waxaa tiraahdeen barnaamijka meeyay ka seexateen idin meeyay laakiin waan yara mashquulay raalli ahaada marka hore waxaan u mahad celinayaa dadka subscribe saaray oo 10,000 gaadhay aad iyo aad baad ugu mahadsantihiin intiina nagu xiran intiina cusubna soo dhawaada faraha ka shaqaysiya runtii barnaamijkani wuxuu noqon doonaa barnaamij xambaarsan dareen iyo aragti inoo gaar ah sidaad ogtiin dalka Turkiga ودل نوعي حمد dalka Turkiga waa dal aad u weyn 80 milyan baa ku nool oo qof waa wadan muslim ah oo yaani taariikh weyn oo fac weyn leh dadka Soomaaliyeedna mudooyinkii ugu dambeysay ay aad runtii u tagayeen iyagoo siyaabo kala duwan dabcan u tagayay qof waliba iyo dooqiisa iyadoo ay ku xulnayd oo qaarkood caafimaad u tagayeen qaarkood tahriib u tagayeen qaarkood dalxiis u tagayeen qaarkood waxbarasho u tagayeen qaar ganacsi u tagay xataa way jiraan noocyo badan bay dadku ay u tagaan dalka Turkiga maadaama aad u ballaaran yahay oo dad badanna ay ku nool yihiin dabcan dal weyn oo inta leeg xumaan iyo samaan inta waa laga helayaa laakiin anagu waxaan maanta ka hadlaynaa waa qaybta caafimaadka dalka Turkiga iyo sida loola dhaqmo dadka ajaanibta ah ee ka yimaada wadamada kale ama Soomaaliya ka kaalay ama Carab ka kaalay meesha dunti ka kaalay يعني marka aad dhakhtar barayfad ah oo dalka Turkiga ku yaala aad tagtid waxaan ku leeyahay dhibaato badan ayaad kala kulmi kartaa wanaag badan oo kala kulmi kartaa dabcan dalka Turkiga waxaanu soo degnay bishii saddexaad gaar ahaan 9kii bishii saddexaad 2019 waxaa jirtay muddo yar kadib markaad joogtay Xamda inaad la xiriirtay dhakhtarkaasna wuxuu ahaa sababta oo la xiriirtayna maxay tahay su'aashaasi waxay gogol dhac u tahay barnaamijka qaybtiisa dambe ee muhiimka ah sababta aan kala kulannay iyo sababta keenaysa inaan barnaamijka noocan oo kala duubno aad iyo aad u mahadsan tahay qaybta hore ee barnaamijka waxay ku saabsan tahay waa iska hordhac sida waxaadkaygu sheegay waxaana ku jiri kara waxyaabo badan oo privacy noo ahaan karaya annaga laakiin ay muhiim u tahay barnaamijkan aanu qaybta hore sheegno waayo isku xirkii barnaamijka wax waliba bilow iyo dhamaad bay leeyihiin haddaan qaybtan hore ka sheekaynin sidii aan ku xanuunsaday sidii hawshaydu ku bilaabantay sidii aan dhakhtar markii ugu horeysay ku tagay wixii xanuunkayga uu sababsaday haddii aanan ka hadlin qaybtii dambe ugu dambeysay kama hadli karno waayo wax waliba bilow ay leeyihiin haddaan qaybta ugu dambeysay aan ka hadlo يعني qof xanuunsaday oo dhakhtar tagay un baa noqonaya laakiin xanuunkaygu sidii ku bilaabmay baa muhiim ah inaan meesha kaga hadlo marka qaybta dambe fadlan la socda waxay ku saabsan tahay qoortan oo nabariga soo baxay oo qalin la iga sameeyay dhakhtarkii aan la tagay qaybtaasina uu igu yiri waxa qabta xanuunka kasarka ilaahay naga nabadgeliyo intii xanuunsanaysa xanuunkaas hayna ilaahay ka kor qaado laakiin dhakhtarkaasi isagoo aan baarin wax baaritaan igu sameyn ayuu igu yiri 80% xanuunkaas qabta qaybta dambe markaas sidii ay ku dhacday si aynu uga hadalo qaybta hore ku soo dhawaada marka lagu leeyahay qaybta dambe ma aan barnaamij dambe aan sameyn doono waa isla barnaamijkani runtii barnaamijkan marka lagu yiri cudurka kansarka ayaa qabta waa barnaamij wax nagu noqotay arrin aad iyo aad u naxdin badan oo aan idinla wadaagi doono isla barnaamijkan gudihiisa dabcan Xamda waxa dhacday dhakhtarkii waxaad u tagtay dumarka waxaana ugu tagtay arrimo dumar khuseeya sida infectionada kale kaadida kale dhakhtaradaas bal ma naga siin kartaa wax yar oo maaragtay horudhaca waxyaalaha kala kulantay waxaan su'aalka weydiinaynaa sidee ballanka loo sameystaa horta ballanka horta waxaa loo samaystaa inta aan anigu ka ogahay waxaad la xiriiraysaa dhakhtarkaasi wuxuu haystaa turjubaano ama carabi ku hadlaya ama ku hadlaya English ku hadlaya qaarkood waxay haystaan qaar Soomaali ah marka numberkooda ayaad raadinaysaa marka numberka ama website-ka ka helaysaa oo dhakhtarka ama dii qof asxaabtaada ama cid kale ah oo numberka haysi ku hayeen ku helaysaa ama adaaba dhakhtarka cagaaga ugu tagay markaas ay kugu xidhayaan qofka turjubaanka ah laakiin dad af Turki garanaysid turjubaan ma baahnid markiiba waxaad ka samaysanaysaa research ka samaysanaysaa ballanta laakiin anigu
sidaan balanta ku helay qaybta dambe ayaan ku sheegi doonaa laakiin maxay tahay sababta aan dhakhtarka markii ugu horreysay aan u tegay anigu caafimaad qaba alxamdulilah ayaan waxaan imid dalka turkiga bishii 3aad bilowgeedii 9kii bisha ahayd baan filayaa markii ay maraysay bishu 15kii bishii 4aad ayaan waxaan dareemay xanuun oo infection aan u maleynayay markii dambana noqdayba oo ahayd kaadida oo i dhibaysay yani kaadi badan oo mar walba suuliga u baahanaysid aniga suuliga baa saaxiib noqonay sababtaasina xanuunka ku dareemayna waxay ahayd habeen aan airportka qofka doonay ayaan suuliga airportka isticmaalay masuuliga baa xanuunka kasoo qaaday wixii igu soo jiray jirkay kusoo jiray buu ahaan ma garanayo laakiin 15kii bishii markay ahayd oo aan habeenka airportka tagnay isla maalintii dambaba xanuunkaas igu bilaabmay 10 maalmood markii aan sugayay oo yani aan asleeda ka baxo amal kale ayaan markaan ka soo reyn waayay baan dhakhtarka la kulmay waxyaabahan yar aan imika ka sheekaynayna dabcan waa wax iska privacy inkastoo caafimaad la xidhiidho haddana laakiin qaybta dambe barnaamijka ayay muhiim u tahay weli waan ka doodnay ma la wadaagnaa dadka ma ka daynaa annagoo ka cararayna inaan noqono yani in arrimo noo gaar ah aan dadka la wadaagno laakiin markii dambe waxaan isku qancinay si ay muhiim u noqoto waa inaan dadka la wadaagnaa oo ay u fahmaan mawduuca dhakhtarka ayaa baa jiro dabcan xumaan u arka wax walba aniga laakiin xumaan in wax yar laga sheekeeyo oo caafimaad la xiriira dhib malaha waa caadi waxa okay balankii kadib waxaa la kulantay dhakhtarkii waxayna kugu samaysay baaritaano dhakhtarkii baan la tegay inaan saaxiib nahay baa horta dhakhtarkan hore ula xidhiidhay iyadu qayb kale ayay la xidhiidhay dadana nambarkooda ayay haysay gabadh turki ah oo ingiliishka iyo carabiga garanaysa oo turjubaan ah oo dhakhtarka turjubaanka ka shaqeysa ayay nambarkeeda haysay inantaas saaxiibka nahay dabcan iyadba dhakhtarkaasi dhibaato ayay kala kulantay laakiin taas kama hadlayno inantaas aan weydiiyey walaalo dhakhtar aan tago nambarkiisa isii dad garanaysid waxay ku tiri nambarkan baan hayaa inantaa la hadal inantii baan la hadlay waan u sheegay inantaasaan kasoo qaatay nambarka waxaan u baahanahay ballan dhakhtarka haweenka ama dumarka qaabilsan baa ballan uga baahanaa ballantii way ii samaysay sida maalinkii labaadba dhakhtarkii markaan u tegey oo dhakhtarka dumarka u qaabilsan ahayd way ku wareysanaysaa dabcan marka dhakhtar aad u tagtid aad la kulantid markiiba wareys baa lagaa qaadaya deetana way wareysatay waxay ku tiri maxaad ka cabanaysaa waan u sheegay waxaan ka cabanayay waxay ku tiri xaas miyaa tahay haa imise sanad xaas tahay sanadii bar baan u sheegay markaa sanadii bar ahayd baan malay haa sanadii 4 bilood baan markaa xaas ahaa caruur ma leedahay maya ilmo markaa soo dilmay haa ilmo iga soo dilmay 2 bilood ka hor intuu uu ahaa ilmahaasi bay weydiisay dabadeedna wixii baan u sheegay waxay ku tiri urka lama qaadin intaas intii ka dambeysay inta xaajigayga ma joogo xaajigaada maxaa ku dhacay hadduu yar haye alaa kulli xaal waxaan ku iri waxay ku tiri urka lamaad yeelan miyaa maya baan ku iri xaajigii mooda joogno way bay ku tiri 2 qaybood baynu samaynaynaa qaybta koobaad waxaan hadda ka cabanaysay kaadida ayaynu baaraynaa qaybta labaadna waxaynu baaraynaa maxaad uur u yeelan weyday wali xamdi waxay ku tiri dhakhtarada waxay ku tiri baby lafti gata baby saas ma yahay wallahi billahi waa yaa baaligi dadana anigana marka aroosad baaman soo ahayd boo sababtoo ah bishii 2018 afraad baan nimi sanad hata kama soo wareegin aroos macnaha aragtideena marka la markaas markii waxaan ka fikiray babygan ka hadlaysa waxay babyga ilaa bixiye bal waxaan sii markaa go'aankan qaatay isla markii meesheeda maskaxdayda aan la sheekaystay maskaxdayda xoog bay u shaqeysaa waxay weeyaan waxaan sii markii qaybtan hore ka baadhay inta ka cabanaysa qaybta bahaba ku soo noqonay u gooba okay waxa dhacday inay daawooyin ku qortay infectionadii ka way baadhay infection ka heshay waxay soo qortay 15 maalmood oo daawooyin ciidda ka badan ah daawooyinka soo qaaday igu tiri marka daawooyinka soo qaadatid igu soo laabo qaybtii labaad baynu u galeynay oo ilmo baarista oo ilmihii hore muxuu kaaga soo dilmay oo maxaad ilmo u qaadi weyday oo maxaa jira laga yaabaa markii maadaama ilmaha hore laga soo xaaray intuu booyinka ku xirmeen waxba adigu waa lisii tashkiiliyey waxaa dhici karta xasuus mudan dhakhtarka turkida waxyaalaha rabo inaan ka hadalna ah marka koowaad wuxuu fiirinayaa meesha aad daciifka ka tahay ama aad oga baahan tahay wax marka meelahaas ayuu buunbuuninayaa si aad dhakhtarka ula xiriirtid waxaa dhacday bishii 5aad inaan aniga imid ilaahay mahadiis bishii 5aad adiga yimi anigoo dawooyinka markaan qaadanaya oo dawooyinkiina xoog uga xanuunsaday oo yacnihii aan dawooyinkaas runtii xoog baan uga xanuunsaday maadaama antibiyootik badan ay ahaayeen dabeetana 3 bisha adiga ayaa yimi bishii 5aad bay ahayd markii aad timid dhakhtarkii ayaan u sheegay waxaan kala kulmay dabcan telefoonka ma kooda jirno wuu ogaa laakiin waxaan ku waxay ku tiri igu soo noqo dawooyinku waa kuwan sii dhamaanayee anigu go'aankaasaan qaatay inaanan u tegin maxaynu ka yeelaa baan ku waan ka wada tashan adigu
marka wuxuu igu yiri maadaama meel wadan fiican imika joogtid wadankeena dhakhaatiir fiican oo saas u badan aanay joogin waa inaad baaritaanka iska martid waxba inaga dhimi maaye waayahay baan ku iri dabcan anigu shaksiyan dadka dhakhaatiirta necab baan ahay haddii dhiig yar laga qaaday xitaa is yidhahda maxaa lagaa soo helayaa jawaabta ma sugi karta ma sugi karo dhaktarka intaan u gelin 5 jeer waa inaan warqada sii akhriyo marba google-ka geliyo على كل حال هو وضع تجنا نجوا وضع سعنا قبل واحد تروى كان عند حاجة ولا سعدا نيجي قولي دي وريسي ولا دقاقدي والي وريستي وأنا قالني مركب واحد بلا وضعي إني تشويش بدن يحقق كسابسن المباريستا إيو لحمة متكدي بهدي أساسا ميويس لحمة متكدي إيو بل خبرة أسكور أنا أيضا قبل مركب لبعض أنا كلها بني دوي صور لما يستوي وحيقول تري وحنكا قاضي يديجك waxaan baaraya hormoonadaada ayaan baaraya waxaan baaraynaa oo kala ku diraya dhakhtarka oo tuubooyinka waxaas qaabilsan laga yaabo markii lagu soo xaareeyay in tuubooyinka ku xidhmeen waxaas adigu baaritaan badan qof bini'aadan baaritaan loo sameeyo oo yani ilmo doonayo baaritaan loo sameeyo kii ugu badnaaba ay sameeyay adigu lacagtuna dabcan way socotay inkastaan xasuusan inka wixii ay ahayd laakiin adigu lacagtu waa socotay un waayo talaabada qaadid baa lacag baa la qaadanaya waxay nagu tiri jawaabti markii ay noo soo baxday waxay tidhi waxaa ma qabtiin alxamdulilah wax waliba waa okay iska taga laakiin 6 bilood haddaad qaadi weydaan dee dhakhtarku idiin furan yahay bay tidhi ilmana waa la beertaa imaada arrintaasna arrin waxay ahayd runtii la yaab leh waayo qof lagu yidhi waxaad oo dhan waa okay waad fiican tahay waxba ma qabtid labadiinaba okay baa tihiin haddana niyadda loo sii geliyay ama hadal lagu sii tooray si kastaba ha dhacdee muddo yar kadib waxaa dhacday isla bishii shanaad markaan dhakhtarada la kulmaynay bishii shanaad bilowgeedii bay ahayd isla bishii shanaad dabayaaqadeedii baa alxamdulilah waxaan ogaaday inaan uur leeyahay dabeetana iyaduna waxay igula sii dardaarantay haddaad uur qaadatid iminka aad heshid bishan gudaheeda haddaad uur yeelatid ila soo xidhin maadaama dilin hore uu jiray ila soo xidhin okay sidaasaan kaga tegay uurkii baan yeeshay isla bilowgii uurkaba waxaan dareemay waxyaabo markaa maadaama khibrad hore oo dilan aan haystay waxaan dareemay calaamado aan yani normal ahayn baan arkay yadii baan la hadla waxaan ku uri calaamadahaasaa jira ma wax normal ah may bay ku tiri ii kaalay bishii 6aad bilowgeedii ayaan iyada haddana dib ula kulmay waxay ku tiri computer kuma soo saaraya ilmihii wuu yar yahay yani oo dee 6 wiigi wixii ka badan baan malanaya in computerka uu soo saaro markaana 5 wiigi mujiyo 4 wiigi waxaan ahaa waxay ku tiri dhiig baan kaa qaadaya waan ku hubinaya uurka laakiin igu soo noqo wiiga dambe dhiiggii way iga qaaday okay wayaan bay tiri iska tag wiiga dambe igu soo laabo adigu hadalkii markaan soo koobo muddo 5 week ah ayaan ku laalaabanaya oo maalin walba wax gooniya la soo sheegay 5 weekna waxa soo bixi waayay computerkii soo saari waayay uurkii computerkii soo saari waayay markii ugu dambeysay waxay ku tiri laga yaabaa maadaama uu soo saari waayay computerkii laga yaabaa inay ilmuhu ay galeen tuubooyinka ay galeen arrintaasi waxay keentay runtii walwal iyo cabsi badan inta ay dhakhtar ka dablaabaneysay waxaa kusoo kordhay inay lugaha ku barareen gacmaha ku barareen waxaan xasuustaa maalin qoortan ay soo barartay qanjo ay soo barareen maalin baan subax baan soo wacay waxaan ku yidhi ma quraacatay waxay tiri adigana quraac baa ka hadlaysa anigana sariirtii baan ka degi lahay runtii waxay ahayd arrin aad iyo aad iga naxisay oo dareemay qoortan markaa aan ballan qaadnay xagga dambe aanu kaga sheekayno barnaamijka qaybta dambe ee intan horena ay hordhac u tahay markaas ay ugu bilaabantay uurka dhexdiisa way ugu bilaabantay qanjaha halkaa qoorta maaragtay bartankeeda ku yaala qanjahan maaha oo kuwan kaas inuu i bararay markaa waxaan soo jiray talo mar waan taamin jiray qanjarka maxaa soo saaray talo lugihiina ay barareen gacmihiina ay barareen dhakhtaradii baan ku noqday gurigii ay la ballantay waxay ugu tiri ilmuhu hadda uu soo muuqday laakiin wadnihiisu ma shaqaynayo ilmo normal ma aha waa inaan kaa soo xaadho 1,000 iyo waxaad bixisaa $700 ilmahan kaa soo xaadhaya waxaad samaysaa deetana waxaan baaritaan ku samaynaa bay tiri ilmaha waxaa keenaya dilankan waxaa soo celceliya dilankan ilmahan soo saaraya deetana isagaan baaritaan ku samaynaya bay tiri waxba iga baari baan ku dhilbana iga soo saaraya kiniinisi oo soo rida may waxay u tama ku siinayo waayo 12 week wixii ka badan ayaa u baahan in soo xaaqo almada dhakhtar inuu ku caawiyo aad u baahan tahay laakiin waxa ka horeeya way iska soo baxayaan dhibaatana kuguma keenayso insha allah gabadhii saasaan kaga yimid bishii 6aad baa markaa lagu jiray go-aan baan qaatay inaanan dib ugu noqon ilmahana isagu iska soo dhaco gurigii baan iska joogay laakiin gacmihii iyo lugihii baa xoogii barareeyay xanuunayay qoortii way sii bararaysay markaa waxaa dhacday
anigana go-aanka aan qaatay oo ahaana guriga iska joogaan ilaahay halkaa ku abuuray baan idhi baan sugayaa baan idhi danahaygaan iska raacday bishii 27 markay ahayd ayay uu ilmuhu soo dilmay runtii waxay ahayd arrin aad iyo aad u naxdin badan wax walbana qadarta ilaahi subxaana wa tacaala ay ku socdaan markaasi waxaa lugihii way yaraa anigu markaa waxaan aanslahaa mar haddii ilmuhu soo baxay oo iskii u soo baxay yacni dee caafimaadba hadda kugu horeyso lugihii iyo wax walba waxaan aaminsanaa inay uurkan la socdeen dhakhtaradii baan ku noqday oo saan uga hubiyay inuu iga soo wada dhammaaday dhakhtaradii waxay ku tiri okay baa tahay dawooyin kale isoo qorto 21 maalmood la qaadanayo antibiyootik iyaguna ahaa dawooyinka baan haddana dib u qaatay waan kasii daraa un jirkii gacmihii iyo lugihii waan bararay adigu waynay xanuunayeen dawadeedii waan iska dhamaystay bishii 8 baa la gaadhay wixii qoortii way iga sii dartaa un luguhu way kasii daraan un dhakhtar baan u tegay markaan dhakhtarka waxaan ugu tegay lugaha iyo gacmaha waayo qanjaan waxaan aaminsanaya lugaha iyo gacmaha inay sababeen dhakhtarka wuxuu MRI buu qoortii iga saaray MRI waa bahalkan weyne la wada galo maxaa la mashiinka qofka la geliyo lugihii buu iga sawiray gacmihii buu iga sawiray adigu dhiig buu iga qaaday wuxuu yidhi vitamin D-guna uu kaa yaryahay dawooyinkaana soo qaado dawooyinkii imay anficin xoogaa markaan isticmaalay weeg meelaha dhakhtar kale ayaan tegay dhakhtarkii kale maxaa medicine aan malanay medicine hospital ayaan tegay dhakhtarkaasaan la kulmay wuxuu iga baaray rheumatism iyo waxaynkaas buu baaritaan baduu igu sameeyey marka wuxuu igu yidhi gacmahan iyo lugahan baan markaa u socdaa waxaan ku yidhi gacmahan iyo lugahan bay xanuunaya baan anigu taagana qoortanba markaa dhakhtarkaa uma sheegin dambe markaas wuxuu igu yidhi waxbaa sababaya in meelahan ay ku xanuunaan meel kaloo adiga ku xanuunaysa ma jirta waxaan ku yidhi qoortan baa yara buuran oo qanjaan ay buuran laakiin aniga ma xanuunayaan markaa qoorta iska daayo lugahan iyo gacmahan waxay iga yeesheen qoortii mar allaala markuu arkay unbaa bu kusoo haadayba sugsugun bu igu yidhi meeshan ba ahaa wax walba halkan unbaa sababaysa igu yidhi waxaan ku dirayaa dhakhtarka qoorta sanka iyo dhagaha qaabilsan loo soo gaabiyo ENT dadna wuxuu ii wareejiyay dhakhtarkii kale markuu ii wareejiyey dhagihii buu iga eegay sankii buu iga eegay wuxuu markiiba sanka qaybtaa midig ayaa igu yidhi cad baa kaaga yaala hilib baa kaaga yaala hilibkaasaana iyo qoortana way wada socdaan markaa waxaad samaynaysaa buu igu yidhi MRI buu isaga ii diray haddana MRI buu igu yidhi soo mar waxaanad samaynaysaa buu yidhi 2 qaybood mid uun in biopsy laga qaado meeshan dayrbad yar la geliyo cad yar laga soo jaro oo baaritaan la sameeyo baaritaankaasna 50-50 weeyaan iyo in meeshaba la qalo cad laga soo saaro lacagtana waxaa kuu sheegaya qaybta receptionka buu igu yidhi qaybta receptionka ayaan u tagnay lacagihii way qiimeeyeen markaa naasir muu joogay ma jooga aniga ma joogi isaga bishii shanaad baa ugu dambeysay meeshan aniga qoraga ah marba dhakhtar u tegayay waxaan u tegay qoladii receptionka u tegay waxay sheegeen lacag adigu 3,000 wax yar la aabay markaa ay sheegeen $3,000 lacag aabay igu dhaheen ayaa midna 2,000 bay igu dhaheen biopsiga tolma 1,000 iyo adigu xoogaa buu ahaa kan qoorta la qalayana 2,000 adigu 3,000 lacag yar oo gaadhay sabeed ban malayna calaa ayi kulli xaal markuu saa igu yidhi waan iskaga tegay dhakhtarkii markaan dhakhtarkii ka tegay waxaan isnidhi bal dhakhtar kale lasoo hubiyo lasoo ogaada in de waxaan ay wax saxa yihiin waxaan aaday dhakhtarkii hore ee ilmaha aan kala xidhiiri jiray qayb kale ayuu lahaa oo la mid ah qaybtan maxaa la dhahaa ENT baa la dhahaa ama dhakhtarka dhagaha sanka iyo qoorta qaybtaas ayaan u tegay dhakhtarkaasna memorial baa la dhahaa waa dhakhtarkii aan arrinta ilmahana kala xaajoonayay qaybtiisii kale ee dhakhtarkaas fadhiistay baan dhakhtarba umaba ekaba hotel weyn Dubai Mall markaa gashay mall baad moodaa qof kasta oo imika ka eega meelaha u arki karaa ama qof kasta oo Istanbul jooga memorial baa la dhahaa waa dhakhtar aad u weyn dad badan ku xidhan ajaanibta ku xidhan tahay dhakhtarta turkiga ugu waaweyn buu ka mid yahay uguna qaalisan marka waxaan idhi dhakhtarkii aniga mallkii unbaa ii sawiran de meesha qurux badnayd marka waxaan idhi dhakhtarkaasaan la soo hubinayaa waxaan qaatay ajiradii MRI-gaygii meesha la saaray baan qaatay waxaan u galay dhakhtarkii qaabilsanaa sanka iyo qoorta iyo dhagaha markuu saa arkay waxay la socotay gabadhii turjubaanka ahayd ee carabiga iyo ingiliishka taqaanay markii horaan ballantay samayn jirtay waqtigii hore tii baa ila socotay markaan saa usoo fadhiisanay oo cajaladii geliyey computerkii uu arkay MRI-gii dhakhtarka kale uu iga soo sawiray uu arkay buu wuxuu yidhi waa kansar
tumor cancer tumor baa meesha ku jiro buu yidhi marka isaguna sankayga ayuu eego halkaas wuxuu ka arkay cad buu gudaha ka arkay marka wuxuu yidhi inantii wuxuu ku yidhi waa kansar anigu waan maqlay marka kansarkii waan maqlay laakiin waan isdhaafiyey waxaan idhi yaa subxaan allah ilaahu naga nabadgelin baa masta kaya inantii markuu saa yidhi saas mayso agtay tii turjumaankaani dabeetana wuxuu yidhi laba mid baa in adeer la samayn karayaa sidii kii horeba sheegay ama meeshan baa cad laga soo jarayaa ama sankana wuxuu yidhi waxaan uga baahanahay biopsy oo isagana irbad baan gelinaya cad baan kasoo jaraya halkana ama biopsy baan ka qaadayaa ama waan qalaya cad baan kasoo saaraya hal habeen dhakhtarkaad seexanaysaa waxaasuu ii sheegay lacagta waa mise waa 4,100 oo dollar dabadeedna waxaan idhi isug markaa kelmadii kansarkana waa isdhaafeeyaa markaa inantii turjaankana si kale igu dhigto waxay ku tidhi waynaad waxaan samaysid waxaan khatar buu noqon karaa kamid noqon waxaan ku idhi lugahan baa igu daran iyo gacmahan baa igu daran cuntona ma cuno waxaan u baahanahay bal kiniini caawiyo kaalmaadkii wuxuu nisii baan ku yidhi horta ay dambeeya waxa kale ninka ii qor ku dheh dhakhtarka wuxuu igu yidhi cunto ma cuntid waxaan ku gelinaya tuubaan kugu dhaadhicinaya cunto ku siisaa waa taqaanaan tuubada sanka dadka laga geliyo subxaan allah aniga waxaan ku maya ma rabo ma dooniya baan ku yidhi taas wax cunto hadda qof caafimaad qaba oo yani la sheekaysanaya wuxuu ku leeyahay tuuba ayaan sankaa gelinaya ma rabo baan ku yidhi taas waayo wuxuu ku yidhi sida ugu dhaqsiyaa badan baaritaanka u diyaar garow markaas waxay ahayd bishii 9aad baa la joogaa markaa waqtigaas bishii 9aad ahayd naasir baa yimid markuu naasir yimid aniga naasir oo wada soconaa haddana waxaan dib ugu wada laabanay labadii dhakhtarba kii ugu horreeyay medicina ayaan horta ku laabanay halkii oo intii hore 3,000 iyo wax yar nooga sheegay isaguna 4,000 iyo wax buu maalintii dambe noo sheegay oo intii hore intaas noo sheegteen may waa 4 waxa weeyaan adigu barayska la isku celceliyay barayska la isku celceliyay waa 4,000 iyo wax la yiri marka waxaa joogay dhakhaat hablo iyo inamo turjubaana ah oo Soomaali ah baa dhakhtarka joogay ilaa 4 qof baa joogay oo Soomaali ah laakiin marka turjubaanka ama English ku hadla ama Soomaali ha ku hadla marka dhakhtarka gashidba turjubaanku adii dhakhtarku inuu kala turjumaya mooyaane wax isagu gooniyo nagala hadleeyay jirin haddaan lacag bixinayno reception ka ayaan tageynay gabar Turkiyada fadhida gabadhaas lacagta ka qabanaysa ama kaar ku bixi ama kaash ku bixi rasiidna waa lagu siinayaa adiga dhakhtarkii hore waan ku qanci weynay dhakhtarkii labaad medicina waan ku qanci weynay waxaan ku soo laabanay kii waxaan ku soo laabanay Memorial Hospital markii hore aan soo marnay yiri kansar weeyaan dadana naasir baa la hadlay wuxuu ku yiri qalliinka ka daynanto oo waxaan dooranay in biopsy la sameeyo dadana waxaan ku yiri biopsy san kama rabo laakiin kanu kaliya wuxuu yiri waayahay waxaan qaadayaa laba biopsy laba yani kala duwan si aynu haddii mid positive u noqdo ama negative u noqdo ka kalena aynu ugu qanacno dee labaan qaadayaa buu okay mar hadda kiisan ka diiday halkaasaan laba ka qaadayaa labadii waxay noqday biopsy imisa lagu 1,000 iyo wax buu haban maana 1,000 iyo xoogaa buu ahaa adigu laakiin haddii qalliin lagu sameynayo total waa 1,100 haddii biopsy lagaa qaadayana waa lagu kala jarjarayaa marka waxaan bixinay halkii biopsy waxaan bixinay 1,200 bay ahayd labadii biopsy adigu 2,000 iyo wax baan bixinay wuxuu kaloo naga qaaday $1,000 oo ahaa in deecaano meesha inta laga qaado xanuun kasta oo meesha ku dhici karaya wuxuu doonaha noqday laga soo baaro aniga ku dhayduna waxaan sitay xanuuno markaan googlaha galay aan ka soo eegay xanuuno aan sidii malaway sabab noqon karaan dadana xanuunada noosh wax kuwa anaga baad laga yaabo inay kuwaas yahay be way wili wax kasta meesha wana baaraya waa sheeko dhaaftay dhakhtarka markaan u galnay ama intaan sugaynay waxa soo baxay qaybta dibitaas ahay maalintii dambe biopsy taas ahay dadkaas jawaabta markaan sugaynay waxaan marnay labada biopsy markii laga qaaday wuxuu noo diray dhakhtar kale oo deecaanada qaadaya deecaanadii aan kunka doorar yaa ku bixnay dhakhtar kale buu noo diray oo ultrasound iyo waxba uu meesha saaraya meesha deecaanada laga qaaday waxbuu computerka saaraya kaas markii noo diray isagana 300 baan ku bixinay waxaan bixino kale meesha saan wax u marinayay markii wadankii aan la hadlay baa caligu yiri toon ku dhaji kan ku dhaji waxaan mari likasaar dadna meesha aniga horta waalay oo saan mar wax u marinay dhacaan baa galay wuxuu ku leedahay soo dilaacinaya ana xana meesha dilaacinay
meesha salnaha waan dilaacinay oo dadkii wadankii joogay lahaayeen dilaaci meesha oo wax ku dhadhajiyo toon ku dhajiyo bax ku xidh laylaha anaa waale meesha horta dadna dhacanku gala dug way xanuunaysa markaas waxaan ku yiri dhacankan ay soo shubo calaa kulli xal waxay naga qaateen lacag 2 biopsy iyo $1 oo meel ah iyo tii dhacanka laga soo shubay waxaas oo marka la isu geeyay lacag 3,000 iyo xooga ah waan iska tagnay 10 casha jawaabta la sugaa marka week meelaha naga maqnaan bay soo hadashay gabadhii turjumaanka ahayd waxay tiri qoraal bay soo qortay waxay ugu tiri baaritaanka intaan ku guda jirnay waxa soo baxay wax kale oo ka duwan oo difaaca jirkaaga la xiriira ma bixinaysaa in waxaas la baaro ma bixinaysaa lacag $400 hadda waragii $1,000 u qaatay inay wax walba baari karaan $1,000 baan ku bixinay wax kastana laga baari karo dadana waxaan ku yiri ha anigu marka waxay ugu weyneed in la igu leeyahay xanuunkaas kuma hayo 100 xanuun oo kala ha sheegan haday doonaan kansar kuma haya ayaan baan meesha ka sugayay marka lacag maanan qiimeynay dabcan wax kastoo lagu leeyahay ha idin wax labaatan beerka lagu kala qaybiyo waa laga nixiyay ha waan bixinayna baan ku yiri maxay sidaa ku qabaan lacag 4,000 maalinkan jawaabta sugaynay ee 10aad ilaahay qdarti waxa turkiga ka dhacay dhulgarir yar baa dhacay anaguna balanti baan lahayn anagu u sii soconaba dhulgarir yar dhacay dhulka okay markay soo xasuusin aniga maalinka horta waan ku faa'iiday oo waay cabsidii oo dhan bay ka tagtay wallahi خلاص hadii خلاص xanuunkii wixiiba waxaan idhi خلاص hadaan ka noolahay dhulgarirki marka anagu balanta anagoo leh oo markaa u diyaar garoobayna dhulgarirkaasi dhacay waa la kala cararay anaguna maanaan joogin ilaa dad ballan leh baan nahay 10 cisho lahaa xanuunkaas laga soo baarayaa waan cararnay waxaan tagnay dhakhtarkii waxaan markaan saa u galayba meeshiisii aan saa u galayba gabadhii receptionka fadhiday baa waxay tiri dhakhtarkii ma joogo laakiin wuxuu ku yiri sabtida qaliin u soo diyaar garooba waa dadkaygii $4,000 laga marayay ee xanuunka ilaahay naga nabadgeliyay intii uu iyana ilaahay ka kor qaaday xanuunkaas jawaab ka sugayay yes iyo no ka sugayay ayaa waxa lagu yiri sabtida qaliin u soo diyaar garooba marka waanu yaabno waxa qaliinka ku yimid barnaamijkiisa ninkan siman ku noo markii ay soo naasir baa la hadlay adigu wuxuu yiri brito la sukan kaana bridii maxaa dhacay hadaba waxaan ugu tagnay meeshiisii waxaan ku sugaynay meesha yar barandada ah ee dadka dhan fadhiyaan bartaasaan ku sugaynay halkii uu nagala kulmi lahaa xafiiskiisa ama meesha uu fadhiistay dhakhtarku ayuu intuu meeshiisa ka soo baxay ayuu bartii aan fadhiyin noogu yimi ayuu wuxuu yiri waraaqahan iyo wixii aan ka baadnay waxba kama soo bixin wax cadaynaya kama soo bixin marka idima fasaxi karo ma oran karo xuma qabtiina iska taga waa in lagama maarmaan weeyaan waa in meesha cad weyn laga soo jaro qaliin lagu sameeyo nanta dadana qaliinkaas unbaa yes iyo no lagu ogaan karaa hadda wax aan idin oran karo yes iyo no ma jirto runtii waanu yaabnay marka sababtoo dadkii dhexdiisana lagula hadlayaa waxaanu filaynay maadaama dhakhtar casri yahay yani in la ixtiraamo xafiiskiisa natiijadii noola sheego xataa natiijadii noola sheegay maxay tahay waxaan ku nidhi marka waxaan weydiiyey lacag waxaan bixinay $1,000 oo ahayd in wax kastana laga baaray bal meeshan xanuunadii markii hore aniga aan watay iyo kuwa iga baaraysan wax ka soo baxay ma jiraan xataa $400 lacagtii la iga qaatay lacagta la iga qaatay leeyahay xanuun baa laga baaraya maxaa ka soo baxay waxba wax walba negative ba ku qornay waxba inay ku hayaan alxamdulillah laakiin waxa igu taagan wali warwarkii ah de xanuunku wuu jiraa ama ma jiro laakiin baaritaanku ma lagu ogaan karaa anagoo meesha fadhina waxa dhacday waxaan ku nidhi okay bal lacag kale aan bixinaynaa way hore lacag badan baan bixinay hagala hadina buu yiri weydiye inanta kale weydiye researchka okay anagoo meeshii joogna ayuu waxa dhacday ku imiga sheegaysay nin iyo gabar wada socda oo turki ah ay hoos kale uga soo baxay meel saas kale uga soo baxay meeshii saa uga soo baxeen anagoo isaguna nala fadhiyo wuu kacay yagii wuu tagay wuu soo kaxeeyay wuxuu yiri qoladan baa xanuunkii adiga aan ka helay gabadha turkida ugu leeyahay xanuunkii adiga aan ka heleen ka daweeyay qoladan baa imika uu hayaaye kaale oo la hadal u sheeg gabadha way timi yadii ninkeedii bay ahaayeen afturkii bay ku hadlayeen dabcan ma aanan fahmaynin inta badan iska day waxa ma aanan fahmayn laakiin waxa ka garanaya uu leeyahay Dr. Murad waa dhaqtar fiican baan ka garanayay iyo ina tiri qorti baa adigu tiri tuswan tus qorti waxay ku tiri aniguna saas oo kala baan ahaa ambay ku tiri waa dhaqtar fiican waan ku dawoobay isagina wuu nala jooga marka maxay meesha cadaynaysaa
in de yani lagugu saxeexayba inaad xanuunkii qabtid mar haddii lagu keenay qof laga daweeyey xanuunkanna ilaahay naga nabadgeliye wuxuu yidhi sankan ayuu ku dhacay xaggan buu ku yaalaa buu yidhi xanuunka halkaa ku dhacay ee kansarka ah ayaa qanjaha karinaya buu yidhi ama baraarigay laakiin maaha buu yidhi wax halkan haya marka halkan ayaa sabab ah buu yidhi xanuunka halkaa ku dhaca ayaa qanjaha barariya buu yidhi waana xanuunka gabadhan laga daweeyey oo 6 bilood laga daweynayay imika xitaa dawooyinkii uu noo sheegay ma xasuustay wuxuu yidhi walba waxaasaan idinku daweynaya oo wax yaro xafiiskaan galnay chemotherapy wax la dhaho chemotherapy waxa weeye maaragtay qofka kansarka qabo waxyaalaha lagu gubo shucaaca lagu gubo ayaan lagu gubo wallahi waxaasaan kugu sameynaya chemotherapy markaan maqalnay maalinka waa dhididaadu anigu yaab naxdin wallahi dhidid waaweyn baa saa uga soo baxay laakiin anigu waqtigaas waan soo yaab goostay horta dee yani xanuunka inaan qabaaban isaaminsiiyeyba waxaa xanuunka oga sii darnaa master google oo runtii mudan inaan barnaamij gooniya ka sameyno way gashaa waxay dhahdaa waxaasaan isku arkay website kasta gasho waxaa baxa cudurka xumaa kansar markaasay tiraahdaa waxaa dhacay calaa kulli xaal dhakhtarkii aan galnay wuxuu yidhaahday qalitaankii marka shakadii halkaas ka bilaabatay qalitaankiibu wuxuu yidhi haddaba waa muhiim researchkii baan tagnay waxaa la yidhi waxaad bixinaysaan 4,100 hal habeenna dhakhtarkaad seexanaysaan يعني الصبح على وقلي هبيني مدي سوت سيحان ساعتها ما لعك على بحنينا صندوق أنا وأنت ورا لعك بحني ما يلعك على بحني سان وعيون بحنينا يعني لعك حكومة سمينا سمرك إلهي هنا عافية يوقف والبإسلام عافية عفان سريع عنها هسية مرك عاف ما كأي قادو واحد كستوى الهريسة صح مرك وحنري أوكي واي أنا أقول مرك وحن كم بقي قليل كاي ماشي أصلا كم بقي لكن خاصة بين نقطتين وانو سلوي يجيبه بلان بان قبصاني سويحي بانو تاقني 5 أكتوبر 5 أكتوبر markay ahayd xanuunkii igu bilaabmay bishii 5aad bishii 10aad bila maraya marka 5 bilood baan xanuunsanayay oo xitaa waxa jirtay mararka qaarkood aanan sariirta ka soo degi kari jirin markuu asar maqnaa aanan sariirta ka soo degi jirin markaan soo tooso ilaa 3 saacadood ay igu qaadatay yani waa caad baan curyaamay lugaha way barareen gacmuhu way barareen maalin waxa xasuustaa xabadda kiniinka aan furan kari waayay oo inaan saaxiib nahay aan wacday oo inta isku ooyay ayaan inta ma la hadlay ii soo carro walaalo kiniinkii xataa ma furan karay inantaas waxay igu timeen xabad kiniin ay furto yani heerka aan gaaray waa markuu asar maqnaaya alxamdulilah horta wax walba haddii maanta laga nabaqo waa alxamdulilah laakiin markaan saa xasuusto wallaahi xaalad aad adag baa dhakhtarkii baan galnay cidla joogtid weli cidla aad joogtid oo ahal joogin walaal joogin cid ku afgaaranaysa aan joogin meeshaas turkiga luuqadda aad ay u dhib badan tahay waxaa dhacday aniga markaan waan joogaa waxaanu galnay balankii bishii 10aad 5teedii waxaanu galnay dhakhtarka qalitaanka waxaanu kala kulannay wax la yaab leh taas qudheeda dhakhtarku wuu naqalay marka horta waxaan ku nidhi dhakhtarka inaan seexana ma doonayne marka qalinka nagu samaysid bal lacagta qalinkana naga jar $500 baa lagu saxay dhakhtarka $500 naga jar gurigayna iska aadman ayaan hore ku nidhi wuxuu may waa khasab inaad seexatid meel laguma socotaan dhakhtarka hadii lagu qalaba meel laguma socotid okay baan ku nidhi subax markaan nimi isla subaxiiba qalin baa lagu sameeyey markii qalinkii lagu sameeyey saa ii soo dhameeyeyba wuxuu yidhi gurigaaga baad iska aadi kartaa maxaan ku yidhi lacagtii waa laga celinayaa maxaan gurigu aadayaa may lacagtii lama celinaye fasax baa tay yani waa caafimaad qabtaa waxba ma qabtid baaritaan baanan u dirnay hawshaadii cadkii lagaa jaray baaritaan bay ku maqan tahay 10 maalmood gudahood baad ku helaysaa waxaan wallahi baan lacagtaa ka tegin waan seexanaya dhakhtarka waanu seexanay habeenkii subaxeeda maxaa dhacay arrin aad iyo aad u foolxun baa dhacday subaxii markuu waaga bariyey oo aanu ku diyaar garoon inaan dhakhtar ka baxno oo laynoo yimi weliba waa lagu soo kalo mase waxaa la yidhi hadday saacadda ay ku gaadho ma 10kay tiri awel mise 8 I don't know xilligaa markay gaadho habeen cusub baa ina haa lacag cusub baad bixinaysaan haddii kale iskaga baxa meesha anagu marka hore waa sii socono lacagtaydi baan ka dhamaynayna meesha lacagta 500 baan ka xaasidayna mooyaane maanaan doonin dhakhtarka inaan seexano dabeetana waxaa dhacday waan iska diyaar garownay subaxiiba 8 meelaha markay ahayd banaankaas ka soo baxnay kaan waliba markaa gacanta igu jira dawooyinka laga siinayay waxaa dhacday in gabadhii nersinta ahayd ay iga saari weydo kaan waliba waxaan ku dhihi ka saar baxash baan ku dhihi inaan tagnaan doonaynaa waxay tiri lagaa saari maayo ilaa iyo ay yimaadaan qolada xafiiska ee lacag qabadka oo la ogaado inaad lacagtii bixisay in kale haddaba lacagtii aan bixinay ayaan hore oo aan soo siinay haddana foolxumada jirta waxa weye qof lagu yidhi irbaddi lagama saarayo ilaa dad anigii baa la kaxeeyey
waxaa lagu daray 2 nin waxaa la geeyey meeshii lacagta lagu bixinayay markaas rasiidyadii xataa waa haystaa wixii dhan waa haystaa runtii waxay ahayd arrin aad anigu waxaan ka yaabayba dadka markii horena 40 kun ee dhuluu qaatay markii dambana 40 kun qaatay haddana yacni biniaadanimada bahalka iga saar ay ku xidhay inaan la ogaado nimanka gurigoodii ku maqan ayaanu kula sugaynaa oo inay lacagtii bixisayeen kale nimankii markay soo shaqo galeen kadib baa layga saaray bahalkii kaanoo leeyahay oo la xaqiijiyey oo naasir israaceen oo ay xafiiskiis la tageen oo la ogaaday inuu lacagtu wada shubay kadib baa layga saaray runtii waxay ahayd arrin aad iyo aad u naxdin badan alxamdulilah 10 maalmood markay naga adigu waxoogaa wiig markay naga maqnaayeen ayay nala soo hadleen waxay dhaheen xanuunkii aan kaa baadhaynay ma qabtid laakiin waxaan kuu gudbinaynaa dhakhtar kale oo qayb kale ah oo baadhaya xanuuna kaa baadhaya xanuunadii aan qaarkood anigu keensaday aan idhi $1,000 ku bixiyay iga baadha aan ku idhi qaar ka mid a ayuu wuxuu yidhi dhakhtar hebel baa kaa baadhaya watag waxaana ugu farxad badnayd gabadha turjumaadda markii cod noo soo duubtay ee lagu yidhi xamda you are not cancer good news ardaygan ingiriiska soo barana wax saxaan horta farxad bay ahayd you are not cancer baa lagu yidhi iyadoo ka waday kansar ma haysatid cudur kansar kuma qabo horta si kastaba ahaatee runtii jawaabtaas aniga markaan maqlay xamdo waxaan ku yidhi wixii naga soo xamdo horta turki way nacday waxay tiri turki dambe lama maqashiinayo dhibaatada naga soo gaartay ixtiraam darrada yani sida biniaadan xumo loogu waxyaabo badan oo aan qaarkood ilownay baa jira waxyaabo badan oo qaarkood yani aan iska daynay oo aan ka sheekaynaynin baa jira laakiin wixii ugu muhiimsanaa adigu intaasay ahayd alxamdulilah waxay igu dhaheen waxaa ma qabtid laakiin dhakhtarkaas lagu gudbinayaa labadeeda haddana israacnay waan sii soconaa uun dadana waan u tagnay dhakhtarkii waxaana loo geeyay dhakhtar kale markaan receptionkiis aan u fadhino oo gabadhii nala socda turjubaanka ahayd ayay nagu soo noqotay iyada oo wadata warqad yar oo ay ku qoran tahay lacag 700 iyo adigu xoogaa 800 wax yar la oo laakiin lacagta liira ah marka waxay tiri waa dhakhtarkaad ku arkaysaa waa kaarkii ku gelitaankii inta weeyaan marka 800 liiro waxaan ma adigu $130 inay waqtiga imika yani isbedeshay sarifkii laakiin waqtigaas waxay ahayd $130 meelahaas ayaa dhakhtarka ku arkaysaa deetana wuxuu kuu dirayaa baaritaano kale bay guturi waxaan ku wari walaala kaala iga kansal balantaana sheegaysid labadeedii waan soo xanaaqnay waan iskaga tagnay ayadana way isbedeshayba hayadana way xanaaqdayba waan iskaga tagnay alxamdulilah ilaahay wuxuu qadaray in aanu helno dhakhtar dowladeed oo si wanaagsan ila dhaqmay inkastoo luqadii ayna dhibaysay waana dee afturki waxaan ahay dhakhtarka dowladda lagagama hadlo laakiin tala halkan waxaan uga soo jeedinayaa shacabka soomaaliyeed qof kasta oo doonaya inuu turkiga caafimaad u tago fadlan markaad dhakhtar la kulmaysid dhakhaatiir anigu waxaan kula talin lahaa kuwa dowladda sax waa tala aad iyo aad u fiican sidoo kale dhakhaatiirta dowladda waxay ku fiican yihiin horta kolle waa free adigu waa lacag yar baa lacag yar baa qadax badan maahan haddaad weliba ciqaamad leedahay muhiimaddu waa ina ciqaamad leedahay waa ina ciqaamad leedahay marka dhakhtarka dowladda dadkan kula talinaynaa laakiin waxa la yidhi dhakhtarka dowladda waa la sugaa ka warraya ka bal wallahi markii ugu horreysay anigu dhakhtarka bareefadkaa tegayay dad baa iga waala waxay ku dhaheen dhakhtarka dowladda ballan kama helaysid markaas ayaamihii hore bilihii hore horta ciqaamadda maanan lahayn ciqaamad haddaan lahayn ma helaysid dhakhtarka dowladda ballan waqti dheer baad sugaysaa laakiin ciqaamadaydana alxamdulillah markiiba waan helay ciqaamadda waxaa laga wadaa deganaanshiya markii aan helay dhakhaatiirtana aan ka xanaaqay dantu waxay u galteen dhakhtarkii dowladda aado waayo meeshii way xanuunaysay dhakhtarkii dowladdan aaday intuu baaritaan igu sameeyey waxa uu iskaan saaray waxa uu dhigagiga qaaday xitaa wuxuu ii soo diray cadkii layga jaray ee dhakhtarkii barayfadka iga jaray 40,000 laygaga qaatay ayuu intuu warqadii soo qoray wuxuu igu yidhi kasoo qaado anaa dib baaritaan ugu samaynaya baaritaan bay ku sameeyeen alxamdulilah wax kasta waxay ku dhaheen okay baa tahay daweyn yarbaysiiyeen adigu waan ku ladnaaday dhakhtarka dowladda laakiin waxaa jirtay caqabad isfaham waa la-aan ah xagga luuqadda ah waxaa dhici jirtay inaan carab aho meel kale ka shaqaynayay dhakhtar qayb kale ka shaqaynayay aan naasir usoo xidhin jiray intaan naasir waco inankaan isku soo xidho inankaas carabka ah iyo af turki kula hadli jiray dhakhtarka kadib buu naasir u sheegi jiray kadib buu aniga af soomaali naasir ugu sheegi jiray way carabi maa garanaynin inkasta ku tiri waxaa carabiyad baan ahay oo laqada carabiga waan dhameeyey horta ummadda soomaaliyeed gabagabadii gunaanadkii barnaamijka waxaan rabnaa dhammaadkiisa inaan talooyin iyo tusaalooyin siino dhakhtar markaad rabtid inaad turkiga u timaadid
waxaan kugula talin lahayn markooda inaad soo diyaar garowdid. waxaa kaloo jirta dad badan ama laisku dayaa luuqad la-aanta turjumaanka. isbitaalada privatka ah turjumaano ayaa u jooga siday xamdo hore usoo sheegtay. turjumaanadaasi isma taqaanaan adiga, wax lacagna kuma weydiisanayaan, waxay ka shaqeeyaan oo ay shaqaale ka yihiin isbitaalka. dabcan sidaa ogtiin soomaalidu way ku cusub tahay turkiga, 8 sano ugu dambeysay ayay ku badan tahay. luuqadii waxaa dhici karta sidii dee la rabay inaysan ugu hadli karin, laakiin dhalinyarada runtii qaarkood aad bay u dadaalayaan, waxayna ku muujinayaan walaaltinimo iyo soomaalinimo. inaan dhaqtarkii ka shaqeynaysa Soomaali ahayd, dhaqtarkii hore aan qalliinka iskaga sameyn weeyaane igu lahaa lacagta 3,000 iyo xogaaga igu sheegay lacag, yani dhaqtarkii medicina. dhaqtarka Soomaalida ay ka shaqeynayeen inaan baa waxaan ku yiri markii dhaqtarka aan la fadhiyo waxaan ku yiri waxaad igu weydiisaa dhaqtarka waxaan iga soo jarayaa meesha ka buuran macadba maqan jirkiiba bal ii kala saar muxuu yahay. inantii waxay 10 minute baan igu shaqeynaysa marba meel bay ka soo wareegtaa, waxay rabtaa in aniga i qanciso ma waa wax hadduu xun yahay waa laga soo jarayaa, hadduu fiican yahay waa lagu deynayaa. san walaal aniga adiga su'aasha kuma weydiina dhaqtarka waxa ku tiraahdaa waxaan ka saarsa maqan jirba mise waa cadkaygii. marka maqan jirkii marraxan waxaan u dhahdaa farxan qanjir sasa waan fahmi waayay, adiga inta way fahmi weyday. markii dambe waxay markii 10 minute ay marba geed isku laalaysay waxay ugu tiri markii dambe te walaal afturki maxaa qanjir lagu dhahaa abay wallahi inay Djibouti inay xamarayd ma kala garanaysaa. way dhacdaa horta mararka qaarkood waxyaalahaas kale way dhacaan. xamar waxaan ka wada reer koonfurka ala kulli xal markaan aniga afturkiga bartay maxaa tiri daraawada wallahi billahi waqti baa isfahmi jirnay. daraa waa ku yiri marka horta turjumaanku waa muhiim. labo turkiga siday xamdo bilowga hore soo sheegtay waa dal aad iyo aad weyn. maanta hadday Soomaali iska dayso oo aysan tagin yani baahi ay maaragtay dareemayaan ama dhaqaale la-aan ku dhacaysa ma jirto. annaga ayaa u baahan waanu imaanay. marka maxaad kula talin lahayd dadka? dabcan waa sidaa sheegtay jacaylkaygii muhiimad wax weeyaan turkigu adiga kuma baahna lacagtaada u baahan yahay dadka yani dhakhaatiirtoodu adiga kuma baahna waxay u baahan yihiin lacagtaada. waxaan barnaamijkan kuugu soo gudbinaynaa aan kuugu sheegaynaa aan kula sheegarayna waxyaabaha anaga nolosheeda ku saabsan, waxyaabaha aan muhiim ahayn aan idinla sheegarayno, waxyaabaha aanan familygayga qaarkood aanan kala hadal weligay aan idinla sheegaraynaynaa. waxay muhiim noqotay in maadaama aanu kasoo badbaaday alxamdulillah hadda aan ka imi aan dhakhaatiir kale la kulmay. waddanka ingiriiska horta markaan imi bay arrintii ku dhalatay oo aan dhakhaatiir dee normal oo caadi iyo bini'aadanimo ku jira bini'aadanimo yani ku dhaqmaya markaan arkay ayaan waxay oo wixii lagula dhaqmayo khalad bay ahaayeen. waa inaad dadka ayaga daba ka nabadgelisaa un baan ka badbaadisaa waxaan. fadlan haddaad dalka turkiga tegaysid ciqaamad samayso dhakhtarka dowladda iska aad. ankaasaan kula talin lahaa tala aad iyo aad u fiican. horta inta xanuunsan ilaahay subxaana watacaala ha caafiyo. waxaan ummadda Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan ilaahay subxaana watacaala uga baryanaa iyo muslimiinta oo dhan iyo bini'aadanka oo dhan inuu caafimaad buuxa siiyo, inuu ka maaran siiyo dhakhtar iyo waxaas oo kale. laakiin waxaan kugula talinaynaa mar walba in aad digtoonaatid oo aad mataqaanaa aad u yeelatid feejignaan fara badan baaritaan aad samaysid. siday xamdo bilowgii soo sheegtay turkiga waa dal weyn, dhakhaatiir badan ayuu leeyahay. waa laga yaabaa dad badan inay wax fiican kala kulmeen, way dhici kartaa dad badan inay daawooyinka heleen alxamdulillah. haddana saasay tahay dhibaatooyin fara badan baa jira oon lasoo koobi karin. waxaan dadka kula talinaynaa inay xoogga saaraan dhakhaatiirta dowladda. sidaas weeyaan alla ilaha dad badan baa waxyaabo kan lagu soo doonayo dhanka guryahoo kale, dhanka guryahooda xitaa caqabad baan kala kulanay, laakiin ma rabno inaan ka hadalno. haddii loo baahdana xitaa mar kale waan ka hadli karnaa, laakiin iminka barnaamijkan wuxuu ku saabsan yahay oo keliya waa dhakhaatiirta. fadlan inta turkiga joogta ama inta caafimaad u joogta ama inta u iman doonta ha feejignaadaan sidaa uu naasir sheegay. hana ku xisaabtamo in laguu soo shaqo tegay. dhakhtarka privatka ah waxyaabaha cajiibka ah jira waxa weeyaan dad badan baan la kulanay oo iyaguna dhibaatooyin badan oo kuwayga waxba ma ahayn kuwo naga waaweyn yani ay ku dhacday. jacaylkayga waxaa jirta in dadka qaarkood iminka de meelaha Yurub oo kale ama meelaha kale oo caalamka qofka markay dhakhaatiirta ay la kulmaan waxaa jirta mar aan qofkan in sidiisa loo daayo uu caafimaadkiisu ku jiro. waa sax. oo tusaale ahaan meel baa xanuunaysa, qalliin bay meeshaas u baahan tahay, laakiin qofkaasi xanuun kale ayuu qabaa ama meesha qalliinka lagu samaynayo way kasii dari kartaa haddii la qalo.
laakiin xaggaas ma aragtaan turkiga dhakhaatiirta barayfadka ahi iyagu waxaa uma eegaan inta badan dadka maxay la dhimanayaan horey ba lagaa qalaya horaa lagaa qalaya lacag buu raadinaya lacag buu raadinaya lama eegayo maxaa qofkan cawaaqo xumo oo ku dhalan karta haddii hal waxaan laga qalo tusaale ahaan dhabarkaa laga hayaa dhabarka haddii laga qalo waa 50-50 bay tusaale ahaan ama xanuuno kale uu qabaa macaan buu qabaa wax kale uu qabaa ama wadnaha xanuunaya yacni dhibaato ka weyn baa meesha iman karta marka maxaa loo qaatay qofkaas inaan qalin ba lagu samaynin dhakhaatiirta caadiga dhakhaatiirta caadiga waxay ka oranayaan waxaan anagu aanu doonayna inaan kuu samayno doonaysid in lagaa daaweeyo wax ka weyn baa kugu dhici kara haddaad waxaan samaysid laakiin dhakhtarka turkiga muxuu eegayaa barayfadka wuxuu eegayaa lacagtu maxay ku jirtaa iyo adiga uu ku akhrisanaya maskaxiyan meesha ku daran cudurba ka daran yahay ayaa lagu sheegaya marka si kastaba ha ahaato qofka markuu xanuunsan yahay waa fahmi karnaa nin bugta boqol u talisay Soomaaliya tiraahdaa dhibaato badan ayaad la kulmaysaa wax walba waad huraysaa adigoo raadinaysa caafimaad ilaahay subxaanahu watacaala caafimaad hana wada siiya saasay tahayna waa inaad mar walba ka fikirtaa maxaadan kugu jirtaa haddaba gabagabadii gunaanadkii maxaad kusoo xiraysaa barnaamijkan waxaan kusoo xirayaa dhammaan shacabka Soomaaliyeed aad iyo aad bay u mahadsantihiin dhegeysigeena aad dhegeysateen waxaan rajaynaynaa in barnaamijkeygani wax badan aad ka faa'iideen haddii ayba dhacdo aad wax ka faa'iiday fadlan qaybta commentiga kusoo daabac xitaa waxaad kusoo qori kartaa aragtidaada iyo waxyaabihii haddii aad xaggaa joogtid aad kala kulanto waad noogu soo qori kartaa laakiin ma jiro barnaamij dambe oo aanu anagu kaga hadlayno arrimahan ama aanu dad aan la xiriirayno oo aanu kaga wareysanayno waxay la kulmeen wixii anaga yacni nagu dhacayo keliya ayaanu kaga hadlaynay waan soo aragnay dad dhibaato ku dhacday sheekooyinkooda qisooyinkooda waan haynaa kuwa anaga taayada ka waaweyn oo lagu sameeyey baa jirta laakiin maadaama dadkii arrintaas ay ku dhacday aan anaga ahayn dee anaga wixii noqosay waan ka hadalay fariinteedina waan idiin soo gudbinay muhiimadeeduna waxay ahayd shacabkayga Soomaaliyeed ee aanu ka dhalanay nala dhashay ee dhiigaygii ah in aan uga digno wixii anaga nagu soo dhacay sidii aan idiin sheegnayna qofka Soomaaliga ahi turkiga isagaa u baahan markaan saa leeyahay inaga waddankeennii iska burburinay inaga meel kasta ma garanaysaa caafimaadkeennii wax kasta nolosheena ku saabsan inaga deesaan isu kasanay weeyaan oo isku samaynay laakiin yeelkadeeda wayba dhacday qofka turkiga markuu aado waa in uu taxadar sameeyo waddankeennina aynu u tashano si aynaan maanta waxayna ku dhacaya meel walba inagaga dhacaya aynu uga badbaadno waddankeena aynu tashano insha allah aad iyo aad ayaad u mahadsantihiin daawashada aadna daawanaysaan iyo barnaamijka aad la socotaan dabcan waxaanu barnaamij kusoo gabagabeynaynaa sidaas iyo nabadgelyo iyo kulanti wacan waxaan kaloo asxaabta xasuusinaynaa channelkan ma ahan channel oo lamaane oo aniga naasir maalin walba aan isla soo gelayno baraanki maalin dhaweyd baa waxaan ku yidhi waxaad ii soo iibsay waxaan ku ii soo iibaan baraanki baan doonaya kugu samey maxay ahayd waad qaraysay waxaad tiri ma qaad waxaan ku yidhi waxaasan u baahanahay markaas maxaad ku samaynaysaa markaas waxaan ku yidhi baraanki baan kugu samey malaad ii diraysaa waxaan aad baraanki iga samayn lahayd marka ma ahan channel dhammaane ma ahan xataa channel aan mar walba soo gelgelayna ma ahan hadda waxaan islana faa'iido yar baa ku jirto oo shacabkaaga haba yaraatee boqolkiiba halna ha noqotin wuxuun baa laga faa'iidaya waxaan isleenahay unbaa insha allah haddaan labadeeda nahay iyo haddaan keligay yahay iyo hadduu keligii yahay soo gelin doonaa laakiin ma aha channel oo lagaga hadlayo sidaan soo baranay dawladaan isku baranay labadeen sidaan isku baranay maxaan samaynay xagee ka dhacday waxaas kama hadlayno ilaahay subxaana watacaala waxaan uga baryaynaa ummadda Soomaaliyeed meel kastay joogaan nabad iyo barwaaqo barnaamijkani waa barnaamij runtii aan isleenahay waxtar wuxuu noqon doonaa dadka maaragtay usoo hanqaltaagaya aan isu soo ducayno tan iyo intaan kulmi doono nabadgelyo subscribe iyo like iyo waxaasoo dhan maaragtaa oo isku duuban like subscribe wax kasta maasha allah si fiican baad walaahay soo dhaweyseen khayr allah idin siiya adduun iyo aakhiraba ilaahay idin barakeeyo 2 week 10 kun dad aad u fiican baad mar doona dhaafi doontaa tartan baan kula jiraa tartan dhaafiya dad waxa jira ku soo galay waqtay waxyaabo badan oo xaalad lagu soo galay laakiin anigu waxaan tartan kula jiraa naasir baan kula jiraa wuxuu haystaa 65,000 oo subscribe fadlan caawo kaliya gaarsiiyo ilaahay ma taqaanin aad iyo aad ayuu mahadsantihiin assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh